mid ka mid ah beelaha deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan beeraleyda beesha Habargadir ee gobolkaasi ku nool ayaa shaaca ka qaaday in xilligan dhibaatooyin xoogan ay kala kulmayaan taliyaha nabad sugidda ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga magaalada Marka waxay ku warameen in taliya Maxamed Sheekh iyo ciidankiisa uu si xooga isugu dayaya sida ay hadalka u dhigeen boobka dhulbeereed ay leeyihiin taas oo ay ku tilmaameen inay tahay mid lagu dhacayo hantidooda dhulboobka taliyaha iyo ciidankiisa lagu eedeeyay inay ku hayaan beesha Habargadir ayaa ku yaala deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxay carabka ay ku dhufteen in dhulkooda lagu beerayo xashiish taasna ay tahay waxaan la aqbali karin Cabdiqafaar Axmed Raage iyo Cabdinaasir Axmed Kadiye oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dhulboobka beeraleyda beesha Habargadir uu ku hayo taliyaha nabad sugidda magaalada Marka ee Shabeellaha Hoose Maxamed Sheekh waxaan maanta isugu nimid dhibaatooyinka ka jiro gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan degmada Marka beeraleyda ku noolaan kamid ahay dhibaatooyin aad iyo aad labadii sano ugu dambeeyay u sii daraade aad taagan cabashaan nahay waxaan ka cabanaynaa ururka Niisa ee degmada Marka taliyihiisa Maxamed Sheekh ciidamada uu ninkaasi taliyaha u yahay oo ku abtirsada Niisa isla markaana maskaxdooda iyo maankooda marka aad fiirido uu ka buuxo wax la yiraahdo qabiil iyo mashaakil iyo nolol xumo iyo dacdaro iyo in la wada noolaaba inay mustaxiil ku tahay meesha beerihii aan lahayn oo galeyda iyo sisinta iyo mooska maalin walba inay wax ku dilaan inay wax ku dhacaan inay simaarta siibaan inay simaarta gubaan inay dadka bac ku dhijiyaan shaqaalihii ka shaqeynay inay bac ku dhijiyaan salaad walba ay ku soo kalahaan mar walba oo si walba oo isugu daynay inaan dacwoono oo la kulanay asaga oo aan mar walba heer degmo iyo heer abniba aan ku laalaabanay waxa suurtagal noqola inaan xasilooni iyo walaalnimo iyo dirisnimo aan ku wada noolaan anaga ma aha waxa hadda ka cabanayna beelbiya maal oo hubaysan oo dhibaataysan maaha ciidamadaas oo saldhigooda uu yahay meesha la yiraahdo Buufow iyo Ceel Jaalle oo labo falaarood ku kala duulayo eriyada Jannaale iyo Buufow beeraha u dhaxeeya oo maalin walba mid la dilo iyo mid la siibo everyday maalin walba ay ka taagan tahay oo si walba oo yeelna inaan qaab maamul iyo qaab deegaan iyo qaab walaalnimo in lagu xalliyo ay suurtagal weeyday aan maanta ka taagana inaan qayla dhaamino dagaal qabiil ma geli karno dawladda lama dirirsanin ma nacbin laakiin waxa meeshaas ka jira waa dhibaato aan u gudbinayno koonfur galbeed Soomaaliya dawladda dhexe Niisa inkaas arkiisa la soo farageliyo oo waxa uu nagu haysto oo beeraheena dadka ugu soo dirayo oo beeraheena uu siibayo oo beeraheena uu ku dhibaateynayo in la weydiiyo oo annaga iyo asaga maxkamadna la wada geeyo oo aan waxdaan waxaysan waxna la ka qaado oo hadii anagu dadka uu xukumay oo gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Marka uu ka yahay dadkii ku hoos noolaayanahay waxaan hay dadkii nabad sugidda qaranka la shaqeey lahaa la noolaalaha anagu canshuur bixiyaanahay dad dagaalama maahin dad mataqaana gurbiga ka samaysan maahin beerihii aan anaguna ku noolaanahay dawladda iyo dadka Soomaaliyeedna mataqaana aan ku saaciideeyay waa laga shaqeysanayaa ninkaas waxaan rabnaa in dawladdu soo faragelido